magaca ururka astaanta ururka iyo calanka ururka saddexdaa shay baan rabaa horta shirweynuhu inuu gacantaag siiyo inuu hillaac sidaa ku noqonayo markaa waxaan ka codsanayaa inaad gacanta igu taagtaan inuu saddexdaa shay ee israaciyey aad raalli ku tihiin iyo inaan wax ka bedelo shirweynaha urur siyaasadeedka ilaac oo galay maalintii labaad ayaa waxaa maanta lagu doortay dhammaanba hoggaanka urur siyaasadeedka ilaac iyo ansixinta xeerka iyo dastuurka ilaac oo ay ansixiyeen ergooyin ka badan 700 oo ruux iyadoo halkaasi lagu doortay xubnaha golaha dhexe ee urur siyaasadeedka ilaac oo ka koobnaan doona 9 ruux cod gacantaag ah ayaa la geliyay dhammaanba tartamayaasha guddoomiyeyaasha u tartamayay iyadoo uu shir guddoominayay Abubakar Xamed Jibriil ayaa qof u soo taagay tartamayaasha iyagu daneynayay inay ka mid noqdaan hoggaanka sare ee ururka Hillaac ee musharaxiinta ah halka waxaan ku hayaa oo ii soo gudbiyay application-kii Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo yidhi waxaan rabaa awalku melgaad baad iga dhigteen maanta way igaga dhamaatay inaad 5 sano soo socda aad doorataan aad diidan inuu professorku noqdo guddoomiyaha xisbiga Hillaac gacanta ha taagaan ma hayo yaa ka aamusay ma hayo waxaana guddoomiyaha ururka Hillaac loo doortay Professor Axmed Ismaaciil Samatar guddoomiye ku-xigeenka koobaadna waxa ku guuleysatay Munabila Xirsi guddoomiye ku-xigeenka labaadna waxa loo doortay Xildhibaan Maxamed Xuseen Maydhane oo ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland guddoomiye ku-xigeenka saddexaadna waxa loo doortay Axmed Cabdiraxmaan Barre Qalinle guddoomiyaha afraad ee urur siyaasadeedka Hillaac waxa loo doortay Maxamed Maxamuud Bucul Buuni xogayaha guud ee urur siyaasadeedka Hillaac ayaa waxa ku guuleystay Dr. Fawzi Maxamuud Qoofal fayeenka ururka Hillaacna waxa ku guuleystay Maxamed Cumar Jibriil guddoomiyaha golaha dhexe ee urur siyaasadeedka Hillaacna waxa loo doortay Muna Xuseen Khaliif xogayaha golaha dhexe waxa loo doortay Cabdinaasir Maxamuud Sahal wixii intaasi ka dambeeyay hoggaanka cusub ee la doortay ayaa iyagu halkaasi ka soo jeediyay kelmado u badan mahadnaq marka mustaqbalka aynu wada leenahay maadaama dadka halkan soo fadhiya ay u badan yihiin dhalinyar iyo inta tirada yar inta nagu jirtana ay yihiin dad waaweyn marka mustaqbalka aynu wada leenahay ayaan rabaa inaad u codeysaan ee aniga ma qofkaad u codeynaysaan inaan ogaa ina waqti dheer iyo hayaan dheerna sugayo laakiin waxaan u horeynaa waqtigayaga inaan idin sameeyno wax ka duwan waxa maanta aad haysataan anigu horta sida qoladan ma cusbiyo maanta iskama kiniibinaya horaan iskaga kiniibshay reer awdaliya Soomaaliland urur siyaasadeedka Hillaac waxay u muuqatay inuu yahay urur siyaasadeedka kaliya ee maanta aan dhex keeni karo fikradeeda horumarineed ee dalkeena waxbarasho hadday noqoto hadday dhaqaale noqoto hadday caafimaad noqoto iyo dhammaan adeegyada bulshada marka aad baan u jecelahay ciyaarahan dhalinyarta oo ku baraarujinaya caafimaadka kolley wax badanna waan ka qaban doonaa siyaasadda ururka Hillaac ay ku jirtaa in la dhiso dhalinyarta maskaxdooda iyo jidhkoodaba daanu nahay community-ga awdal iyo salal iyo gabilay waxaanu u sidnaa fariin Somaliland jamhuuriyaddeeda dadkeygii kale iyo dadka reer Somaliland ee adduunyada ku nool fariintaasuna waxa weeyi waxaanu idiin sidnaa hadiyad baanu idiin sidnaa hadiyad la yidhaaho Hillaac ayaanu idiin sidnaa oo keeni doonta hadduu Ilaahay nagu simo nuur iyo onkod iyo ufo iyo roob iyo raxmad keeni doona ayaan idiin sidnaa fariintaasuna waxa weeyi mid ku taagan 6 qodob oo Hillaac aad maanta doonaya inaad guntataan oo haddaad guushana siisaan doorashooyinkaa soo socda 6 qodob oonu ku kalsoonahay waddankan inay dhanna ka ilaalin doonto oo ay aad iyo aad u hayn doonto wanaagga iyo wixii aynu soo qabsannay 30 sannadood iyo googo ah laakiin wax cusub ku dari doona
safar cusub haddaannu reer hilaacnahay ayaa noo bilaabmaya wixii berri ka dambeeya safarkaasuna wuxuu noqonayaa bari waddankii bari in loo baxo halkaa laga bilaabo ilaa Gabiley Hargeysa halkaa laga wado Hargaabo Burco Laascaanood Berbera halkaa barigii marka dee noo soo duceeya khayrka naga horeeya inuu Ilaahay nala kulmiyo noo soo duceeya